السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxaad ka ogtahay goobaha dunida ku yaala ee ka caagan booqashada kaga bogo muuqaalkan oo dhammaystiran. jasiiradda masaska ee dalka Brazil. jasiiradda Dagwemada Grande ee dalka Brazil waxay ka mid tahay goobaha caanka ah ee aan dadka loo ogoleyn inay booqdaan. waa goobo halis ah oo ay adag tahay in qofkii tagaa uu kasoo noqonin isagoo bad qaba. jasiiraddan ayaa waxaa ku nool masaska ugu badan adduunka inta la ogyahay, waxaana lagu qiyaasay in mitir walba oo dhulka jasiiraddaas uu jiifo mas. waxaana la sheegay inay yihiin masas marka uu qofka arko argagax gelin kara, waxyeeleyn karana dadka baniaadamka. masaskaas ku nool jasiiradda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin masaska adduunka kuwooda ugu khatarta badan, waxaana ka mid ah maska nooca casaanka ah ee candhuufta tuura. dowladda Brazil ayaa xirtay jasiiraddaas kana mamnuucday in dadka ay booqdaan. inta la ogyahay, dowladda dalkaas ayaa dadka cilmi baarista sameeya oo keliya u ogolaatay inay booqdaan jasiiraddaas, kuwaasoo iyaguna la dul dhigay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay la socdaan dhakhaatiir daweyn kara haddii ay wax noqdaan. khubarada arrimaha deegaanka oo ka socday jaamacadaha Sydney Australia iyo Salma Maria ee BBC-da qaybta Brazil la hadlay waxay sheegeen in jasiiraddan ay samaysantay 11,000 oo sano ka hor, taasina ay keentay in duurjoog u badan masas ay ku tarmaan jasiiradda hawdka ah ee dhanka xeebta kaga beegan magaalada São Paulo ee dalka Brazil. xarunta lagu kaydiyo miraha dalagyada ku beeran adduunka waa sanduuq aad u weyn oo u samaysan sida qaboojiyaha laguna kaydiyo miraha dalagyada adduunka laga beerto. sanduuqan oo ku yaala gudaha dalka Norway ayaa waxaa hirgelisay dowladda dalkaas, waana goob lagu ilaaliyo miraha si haddii ay masiibo ama aafo kale ka dhacdo dunida loo helo kayd miro oo loo laaban karo. wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa kusoo waramaya in sanduuqan oo ku yaala jasiiradda Spitsbergen ay ku kaydsan yihiin milyan baaldi oo midkiiba ay ku jiraan 100 milyan oo ah miro kala duwan, kuwaas oo aad muhiim ugu ah dunida. waxaana mashruucan la hirgeliyey sanadkii 2008. waxaa laga dhisay qalab ay adag tahay inay biyo ama waxyaabo kale ay dibadda uga yimaadaan kadibna ay waxyeeleeyaan. xarunta looma ogola dadku inay booqdaan, waana sababta lagu sheegay sidii looga baaqsan lahaa waxyeelo soo gaari kara mirahaas. sanduuqan waxaa ku dhan dhammaan miraha dalagyada laga beerto caalamka, haddii ay ahaan lahayd khudaar, cuntada iyo dhammaan waxyaabaha laga isticmaalo adduunka. sanduuqan ayaa loo naqshadeeyey qaab uusan u dumin, adkeysigiisuna uu gaarayo 200 oo sano, waxaana uu iska celin karaa wax walba oo ay ka mid yihiin duufaanta, qaraxyada, dhulgariirka iyo wixii la midka ah. miraha halkan lagu beeray ayaa ah mid laga soo ururiyey dhammaan dalalka caalamka, waxaana dalalka halkaas wax ku kaydsaday ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo inta badan wax xiriir ah aan la lahayn caalamka intiisa kale, marka laga reebo dalal dhowr ah oo Shiinaha uu ka mid yahay. jasiiradda xabaasha ee dalka Talyaaniga. Baveglia waa jasiirad yar ku taala dalka Talyaaniga, una dhexeysa xeebaha magaalooyinka Venice iyo Lido. goobtan waxay horey u ahayd goob lagu karantiilo dadka qaba cudurka bubonic ee ka dhashay bakteeriyada, waxaana mar la sheegay in lagu karantiilay 160,000 oo qof oo qabay cudurkaas, kuwaas oo markii dambe qaar badan oo ka mid ah ku dhintay jasiiraddaas. wararka qaar waxay sheegayaan in 50% carrada dhulka jasiiraddaas ay tahay raadiga jirka baniaadamka, maadaama sida la sheegay meydka dadkii u dhintay cudurkaas ay ku qurmeen dhulka.
wargeyska Daily Mail ee Britain ka soo baxa ayaa ku soo waramay in jasiiradan muddo hadda laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumaystiga Talyaaniga oo ahayd xarun lagu hayo dadka qaba xanuunada dhimirka, waxayna taas keentay in dowladda Talyaaniga ay markii dambe xirto jasiiradda Bavaglia kana mamnuucdo in dadku ay booqdaan. qolka 39aad ee Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamo inuu yahay dal go'doon ah kana go'an dunida inteeda kale ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado waxa ka dhex socda. dalkan oo sidiisaba ay adag tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaas iyo waxyaabaha ay qabtaan ayaa qol lagu magacaabo Room 39 ama qolka 39aad waxaa la sheegay inuu yahay qol aanan cidna loo ogoleyn inay gudaha usoo gasho. wax badan lagama oga qolkan ku yaala magaalada Pyongyang, hase yeeshee dadka aqoon u leh ama la soo shaqeeyay xukuumadda dalkaas waxay sheegeen in qolkaas uu yahay goob ay si gaar ah ugu kulmaan hogaamiyaha waddankaas iyo saraakiisha militariga. Ri Jong oo ah sarkaal horey uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang oo u waramay telefishinka CNN ee Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabaha kale ee lagu qabto qolka 39 oo uu muddo kasoo shaqeeyay ay tahay meel lacagta loogu geeyo saraakiisha sare ee dalkaas. dowladda Mareykanka ayaa horey u sheegtay in qolka 39 uu yahay mid lagu qabto howlo sharci darro ah. aaga 11aad ee dalka Mareykanka. aaga 11aad ee ciidamada cirka dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalkaas oo loo yaqaano Area 51. hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa markii ugu horeysay qirtay jiritaanka goobtan sanadkii 2013. inta badan goobtan kama soo muuqato qariirada goobaha dalka Mareykanka, waxaana la aaminsan yahay in sidaas loo sameeyay sababo amni. goobtan oo qiyaastii 170 kiilomitir u jirta Las Vegas ayaa sanadkii 1958 waxay ahayd hay-adda atomikada Mareykanka ka saartay goobaha dadweynaha ay tegi karaan. waxaa gidaarka goobtan ku hareeraysan ciidamo hubeysan. sidoo kale waxaa adag in diyaaradaha ay dul maraan goobtan iyagoo aanan wax fasax ah haysanin. waqti way adag tahay in la ogaado waxa ka dhex socda xaruntaas, dadkuna marnaba looma ogola inay gudaha u galaan oo waxa gidaarada ku dhegan koronto dili karta qofkii isku daya inuu gudaha u galo. xaruntan waxa ay u dhowdahay saldhig military ee Nevada oo ah meel lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 1950 ilaa 1990. waxay ku fadhidaa dhul dhan 3 milyan oo hektar. waxay dad badan rumaysan yihiin in dowladda Mareykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan suxuunta duusha oo la rumaysan yahay inay ka hayaan nolol qalaad oo cirka ka yimid. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah noolayaashaas ay dowladda Mareykanku qabatay kuna hayso xaruntaasi Area 51 ee Nevada. Annie Jacobson oo wax ka qoray taariikhda saldhigan ayaa BBC-da u sheegay in goobtaas ay ku rakiban yihiin qalab aad u horumarsan oo dowladda Mareykanka ay adeegsato howlaha sirdoonka. India. jasiiradda dadka The dense go'doonsan ee Hindiya. forests of North Sentinel jasiiradda Island are home Sentinel to ee a ku taala primitive waqooyiga dalka Hindiya waa hoyga dadka asal ahaan loogu yimid dalkaas, kuwaasoo qarniyo ku noolaa halkaas. dadkan ma ahan dad doonaya inay la macaamilaan dadka kale ee adduunka. mar walbana waxaa la sheegay inay dagaal kala hortagaan qof walba oo isku daya inuu soo galo jasiiraddaas. dowladda Hindiya ayaa joojisay dhammaan isku day walba oo loogu tegi karo dadkaas kadib markii ay ogaatay khatar dadka ka soo gaari karta, waxaana dowladda ay hagaajisay xeyndaab aanan loo dhaafi karin dadkaas. sanadkii 2006 kalluumaysato isku dayay inuu gudaha u galo jasiiraddaas ayaa la dilay. sidoo kale dalxiise u dhashay Mareykanka oo isku dayay inuu tago jasiiraddaas ayay dileen dadkii ku noolaa goobtaas.
dad badan oo isku dayay inay booqdaan goobtaas ayaa waxa ay iska hor imaad kala kulmeen dadka Sentinel, lamana oga sida ay u nool yihiin iyo dabeecadooda. fadlan subscribe, like, share ha ka iloobin insha allah. gambaleelkana furo si muuqaaladan soo dhigno ay kuu soo gaaraan. noqo qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena.